يونس ابن متى ورسول كم من الرسول شاء الله وحالو دري قوم دكنا مقالة اللي يرادو نينوا وكتا الله قبل كموصل dalka Ciraaq Naynuwa waxay ku taallaa daanta webiga Dijla waxaana deganaa qoom ka tirsanaa qabaa'ilada reer Bani Israa'iil magaaladan ayaa hoos imaan jirtay boqortooyadii Ashuuriyiinta oo ahayd boqortooyo xoog badan oo ka talin jirtay Shaam Ciraaq iyo Masar iyo qaybo badan oo kamid ah Bershiya daawadayaal ku soo dhawaada qisadii Nabi Yunus alayhi salaam halkan وقب ميديا أنا وحنا هاي علي محمد كسر دوادة حلقات صدحية طمنات قصص كان بيضا نبي يونس عليه السلام وحا وكذا شيء غير نينوا وكتر سنة غير بني إسرائيل إركن وحي نقدم كل يوم هذا الشركي هي إن أصنام سميستان وجوينا سنة بلي يراهدو إشتا نبي يونس عليه السلام هي الله قدر إنه ويره عبادة ديسا كان فوقادان أصنام تن أي إلهية ذكرتين بس مركبة وحي كله ريمادين ديد ما أذك أو أي كديرين فرنتي وكسو حنباري حاجة الله نبي يونس عليه السلام هي أسمري qoomkiisii har iyo hameenba dacwadda ugu yeerayay kor iyo hoosna wuu ugu dhigay laakiin way ka madax adeegeen wayna ka dhaga xirteen waxna way ka qaadan waayeen dhammaantoodna waxay isku waafaqeen beeninta Nabi Yunus alayhi salaam muddo 33 sano ah ayuu dacwadda ugu yeerayay Naynuwa balse wuu waayay wax rumeeya markii uu ka quustay ayuu Nabi Yunus alayhi salaam reerkiisii ku yiri muddo 3 maalmood ah waxa idin asiibi doona cadaab xagga alle idinkaga imaanaya kadibna isagoo caraysan ayuu magaalada isaga baxay Ibn Abbas Allah ka raali noqday wuxuu yiri maadaama ducada nabiyadu ay tahay mid alle aqbalo sidaas ayuu cadaabkii uga soo muuqday reer Naynuwa korkooda balse ma yahayn arrin alle subhanahu wa ta'ala uu waxyooday reer Naynuwa sidoo kalena alle ma amrin in uu magaalada ka baxo balse alle subhanahu wa ta'ala ayaa ka aqbalay cadaabkii ugu goodiyay reerkiisa markii uu Nabi Yunus alayhi salaam ka baxay deegaankii ayaa waxa soo muuqday astaamaha cadaabkii uu uga digay markay dadkii deegaanka arkeen wixii uu Nabi Yunus sheegay alayhi salaam inay xaq tahay calaamadihiina ay soo muuqdeen ayay isku yimaadeen iyaga oo ka qoomameynaya caasintii ay kula kaceen nabigii loo soo diray Yunus alayhi salaam kadibna dhamaantood waxay ka soo baxeen guryahoodii iyagoo alle subhanahu wa ta'ala baryaya iyaga oo ka cabsanaya in cadaabkii loo ballan qaaday uu haleelo dadkii oo dhan waxay rumeeyeen ilaahay shirkigiina waa iska fogeeyeen markaasoo alle subhanahu wa ta'ala u naxariistay kana joojiyay dhibtii ku soo socotay ibn Hajar waxa uu wariyay in Nabi Yunus alayhi salaam markii uu magaalada isaga tagay inuu raacay markab ay dad badan saaran yihiin goortuna waa habeen oo dabaylo badan ayaa jira waxa mar qura isbedelay jawigii badda mawjaduhuna mar qura ayay kor u kaceen daba si loo yareeyo culayska doonta ayay dadkii tuureen alaabtay wateen balse waxba kama bedelin mawjadihii iyo dabaylihiina sare ayay u sii kaceen dadkii waxay dareemeen cabsi waxay ku sheekaysteen in ruux baxsad ka ah qoomkiisii uu doonta saaran yahay waxayna go'aansadeen inay qori tuuraan ruuxii uu qorigiisu soo baxana badda lagu tuurayo si ay kuwa kale u badbaadaan markay qoryihii tuureen ayay ku soo baxday Nabi Yunus alayhi salaam markaasay ku dhaheen adigu waxaa tahay nin wanaagsan ee aan ku celinno qori tuurka mar labaad iyo mar saddexaad ayay ku celiyeen markastana qorigiisii ayaa soo baxayay sidaasi ayaana badda loogu riday kalluun ama nabari weyn ayaa markiiba afka u dhigtay oo liqay Nabi Yunus alayhi salaam la ayaa amray nabarigan inuusan lafna ka jabin hilibkiisana uusan taaban sidaas ayuuna Nabi Yunus alayhi salaam ku tagay calooshii nabariga isaga oo nabad qaba Nabi Yunus nabarigan liqay waxa uu la tagay badda gunteeda markuu dhex tagay xawayaanadii kale ee badda ku noolaa ayuu Nabi Yunus alayhi salaam maqlay xawayaanadii oo Ilaahay u tasbiixsanaya kadib isaguna waxa uu bilaabay inuu tasbiixsado sida uu Allah ku sheegay aayadda 87 ee suuradda Anbiya inuu Yunus ka soo dhawaaqay mugdiga dhexdooda isaga oo leh ilaahu adiga mooyaane ilaah kale ma jiro xumaan adiga ka nastahan aniguna kuwa daalimiinta ah ayaan ka mid noqday oo uu la jeedo amarkaaga la'aantiis ayaan dacwadii ka soo tagay Ibn Abbas Allah ka raali noqday mugdiyada uu ka soo dhawaaqay waxa uu ku fasiray nabariga calooshiisa mugdiyadii ahaa iyo kan gunta hoose ee badda iyo mugdiyada hameenkii intaasoo mugdi ayuu Nabi Yunus ilaahay ku dhaxusayay Ibn Kathir ayaa wariyay inay culimadu isku khilaafeen waqtiga uu ku jiray caloosha nabariga maalin 3 maalin iyo asbuuc qaarba waqti ayay ku sheegeen sida saxdaana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka ajiibay ducadii Nabi Yunus wuuna ka badbaaday calooshii nabarigii ayaa u soo baxay xeebta badda halkaasi ayuuna ku tufay Nabi Yunus alayhi salaam isaga oo gaajoonaya raadsan sidoo kalena xanuunsanaya alle ayaa u waxyooday inuu cuno miraha geed meesha ka dhawaa oo la yiraahdo yaqtiin hooskiisana uu ka harsado kulaylka cadceedda sidoo kale alle ayaa u diyaariyay xawiyaan durjoog ah oo dhadig ah oo caana ka cabo inta jirkiisu ka soo kabanayo culayskii badnaa ee ka soo gaaray calooshii nabariga waqti yar kadibna Nabi Yunus alayhi salaam ayaa bogsaday waxaana la amray inuu qoomkiisii ku laabto markii uu ku noqday qoomkiisii ayuu la kulmay iyaga oo dhammaantood rumeeyay wayna soo dhaweeyeen أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما